waxaa dhici doona fadhigii koobaad ee golaha shacabka. marka gudoomiye kulankaas ajandaha idin qorshaysan uu dhici doona muxuu yahay? wuxuu yahay waxa weeye waa furitaankii iyo meeshii waxa istaagay institutionka waxa istaagay hay'adii sharci dejinta oo dalka awal ka maqnayd oo waqtigeedu dhamaaday ayaa hadda tiirkii loo taagay dhaartii khamiista marka laga soo bilaabo. marka waxay u baahan tahay marka furitaankii iyo hawshii la geli lahaa in la bilaabo la guda galo. marka hawlaha ilaa ay hadda idin qorshaysan sida idin ku kala horeeyaan bal maxaa kamid ah? waxaa kamid ah dalkii in dawladdiisa u kala horeyso loo wado in guddi la saaro inay soo qaban qaabiyaan doorashadii gudoomiyihii rasmiga ahaa iyo ku-xigeenadiisii xagga kalena aqalka sare sidoo kale iyaguna ka wadaan oo horta sharci dejintii loo dhamaystiro kuwii rasmiga ahaa oo la wareegi lahaa dowladnimadii inta laga dooranayo madaxweynihii iyo wixii ku xigay. marka xilliga gudoonka la dooran doona waa goorma? gudoonka waa sida ugu dhaqsaha badan insha Allah. marka ugu dhaqsaha wax la isku raacsan yahay sida ugu dhaqsaha badan. marka taa macnaheedu waxa weeye wali xilli go'an oo la go'aamiyay ma jirto wali waa filasha jirto. xilli hadee anigu ma goyn karo waa waxa meesha xildhibaanada jooga 275 jooga intii joogta ayaa isla garanaysa oo aan la isla raacaa mideeda kale waa wax la soo ururinayo laakiin go'aanka guud baa wuxuu iska yahay sida ugu dhaqsaha badan maadaama waqti dheer la joogay dhibaataduna meel walba ay ka jirto in la soo dedejiyo ayay tahay ujeedada xildhibaanada baarlamaanka 11aad. waxa la isweydiin karaa baarlamaankii waa ka shaqadiisii bilaabaya sidoo kalena wali xildhibaanada jira maqan oo aan la soo dooran iyo kuwa kale aan wali shahaadadiiba qaadan oo maalmihii u dambeeyay la soo doortay. bal taa lafteeda maxaa idinka qorshaadaadtiin imika gudoonkii ku meel gaarka ahaa ee baarlamaankaas? waxa weeye shalana waa laga codsaday golaha meeshii lagu dhaaranayay gobolada ay wali ku dhiman yihiin kuraastu waxaan ka codsanay haddana ka codsanaynaa anagoo idinkana idin marinaynaa inay soo dedejiyaan oo ay soo daayaan kuraasta ku xayiran. 2 gobolba hadda wax ku dambeeyaan waxa weeye Jubbaland iyo Hirshabelle waa yar yihiin waxaan rajaynayaa inay maalin iyo 2 ku soo afjaraan. Jubbaland ina codsi gaaran u diraynaa iyo inta ku shaqale in la soo dedejiyo oo la helo mataalkii dadkii xaq u lahaa oo gobolku inay helaan dadkii ku matalayay golaha shacabka. waxa tahay imika gudoomiye ku meel gaara oo golihii shacabka hogaaminaysa adigoo ku helay doorkii da'da ma u sharaxan tahay gudoomiyaha rasmiga ah golaha marka la gaaro waqtigeeda? maya waa soo bixi doonaan dadka musharaxiinta ah ayagaasna hadhow golaha u taalin la kala doorto ka ugu haboon. marka taasna waxaan rajaynayaa inaanu waqti dhaqso ku gaaro.